Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada dhammaantiin. Haddii ay tahay markii ugu horreysay aan soo boqoto fadlan soo dhowo bartaana subscribe saaro si informationka iyo macluumaadka aan halkaan soo gelino aad noqotid qofka ugu horreeya ee ka faa'iideysta mise la kulma. Sidoo kale waxaan leenahay Telegram channel, isagana linkiga qaybta hoose ayaan idiin soo dhigi doonaa. Kusoo biir maadaama uu halkaan aan video kusoo gudbino aysan macquul ahayn inta badan inaan kusoo gudbino waxaa la yidhahdaa qoraal mise ay sheegeen maxaa la yidhahdaa trade-ka markaas jira aan halkaas iyo Telegram kusoo gudbino. Sidoo kale asagana linkigiisa hoose ayaan idiin soo dhigi doonaa oo kusoo biiri kartaa. Waa mahadsantihiin dhammaantiin. Sidaa ogsoontihiinba maalin walba axda waxaan sameynaa waxaa la yidhahdaa forecasting trade-yada maxaa la yidhahdaa isbuucaas iyo falanqeynta iyo waxyaabihii markaas suuqa isbuucaas kala kulmi karno ayaan saadaalinaa. Kadibna maxaa la yidhahdaa fikrad guud ayaan ka qaadanaa oo suuqa ayaan isbuucaas kula tacaamulnaa. Marka maanta waxaan sameynaynaa falanqeynteennii isbuuclaha ahayd. Sidoo kale insha Allah waxaan isku dayi doonaa hadda kadib maalinka khamiistan inaan waxaa la yidhahdaa ayadana mise arbacada oo kale inaan soo gelino falanqeyn kale maadaama uu suuqu isniin iyo talaado oo kale markii la joogo oo kale inta badan update-ka ugu badan uu sameeyo. Laakiin maxaa la yidhahdaa maalinka xaddan inaad sameyso falanqeynta waa muhiim koowaad sababtoo ah weekgaas oo dhan baad concept ka qaadan kartaa. Isniin iyo talaado oo kale aad trade gareyn kartaa. Markaan ku leeyahay update kale sii sameeyaan inta badan khamiista iyo jimcada arbacada iyo khamiista iyo jimcadana waa maalmaha ugu badan oo sidoo kale fursadaha ugu badan ayaguna ay jiraan suuqa. Marka waxaan insha Allah falanqeynteena ka bilaabaynaa mar walba waxaa la yidhahdaa lacagta indexka ee doolarka ee loo yaqaano DXY sidaan last week idin sheegay weli waa uptrendkii last week maadaama dhowr trade horta waan ka helnay last week. maxaa la yidhahdaa movekan markuu ka ahayay lacagaha EURUSD NZD lacaga badan ayaa fursadna siiyey. qaarkiina waxaa waaye inaad ka faa'iideysateen baan rajeynaya oo waxaa la yidhahdaa barteena Telegramka waa idinkugu soo diray. Sidoo kale marka maanta weli waxaa waaye waa uptrendkii last week oo ku jira DXY. Hoostii ugu hooseysay halkaan bay ahayd waa lala soo sintay waxaa la yidhahdaa waa la testay gareeyo halkaana la yimid laakiin toos looguma sii soconina waa laga noqday. waxa ujeedaan 4 hourka markuu uu halkaan yahay 1 hourka oo kale markaa tagtid trendigan yarkaa soo socday oo halkaan ahaa 1 hour lower low maxaa la yidhahdaa lower high lower low lower high lower low lower high lower low. meeshaan markaa ujeedid waxaa ujeedaa in halkaan dhaqaaqan uu jibiyey korkii usoo hooseeyey oo ahaa waxaa la yidhahdaa midkaan waxaa ujeedaa in lasoo dhammaystiray oo lasoo dhameeyey. haddii halkaan lasoo dhameeyeyna waxaa arkaysaa inay fursaddii uptrendka aad ay inoo bilaabatay oo movekan koowaad uu dhaqaaqay. movekan xitaa waan trade galinay oo USD oo kale fursad ayaan ka helnay NZD USD oo kale fursad ayaan ka helnay. haddana still weli waxaa la yidhahdaa qorsheena sidoo kale ayuu weli inoogu jirtaa. DXY hadda doolarka waxaan ka sugeynaa indexkiisa waxaa inooga muuqda waa in zoomkan horta lagu soo noqon karo waa macquul oo ah halkan meel imbalance yar ku jiro. sidoo kale waxaa ujeedi kartaa halkan oo ahayd markii u horreysay meel aan rabnay in seelka uu ka soo socdo oo halkan talena loo tago seel xoogan uu ka dhaco. waxaa ujeedaa iyadii inta laga dulmaray oo dhaqaaqaas uu jibiyey oo kor uga baxay weli laakiin si official kor uusan uga bixin laakiin uu madaxa kala dhaqaaqa ujeedaa. ilaa brio kale waxaan sugaynaa in si fiican saas madaxa lagala baxo kadibna waxaan sugaynaa in isla barteeni lagu soo noqdo oo meelahan ahayd oo imbalance candleka yarka oo meesha ku jira oo ah in lagu soo noqdo. kadibna waxaan sugaynaa in movekeena kore oo xiga aan bartaas ka helno. haddii aysan ahayn oo halkaan uu iska dhammaystiri waayo oo shuruudihii aan ka wada weyno waxaan u ololeyn doonaa mise aan maxaa la sii saadaalin doonaa in ay noqon doonto meesha laga kici karo maxaa la fursadda uptrendka again inay noqon karto bartaan ay ahaato meel maxaa la yidhahdaa ayadana laga kici karo oo uptrendka uu aadi karo. midday noqoto ma garan karna laakiin suuqu markuu uu maxaa la yidhahdaa is dhammaystiro ayaanu waxaa la yidhahdaa go-aan iyo kii ka qaadan karnaa. halkana waa meel laga kici karo halkana waa meel kale oo laga kici karo. marka lacagaha aan uga faa'iideysan karno marka indexka saas oo soo xaqiijino waxaa kamid ah EURUSD
waxaa waaye ayadana waa opposite-ka waxaa la yidhahdaa DXY. DXY maadaama ay uptrend ahayd, tanna waxaa ujeedaa waa sell oo downtrend waaye. ayadana halkan ayaa online-teena koowaad maadaama lower low u hooseeya halkan uu yahay oo halkan hoose la yimid, waxaan sugaynaa mid ka hooseeya inuu yimaado oo move ah. weliba kan uu soo bilowda isagana ujeedaa oo kan ka hoos mara si dhaqaaqana uu inooga sii socdo, si marka uu suuqu intaas uu samaysanin oo halkaas move uu saas uu soo wada teginin. mar walba waan kuu sheegay wuxuu suuqu samaysanaa waxaa la yidhaahdo dhaqaaq, noqosho, dhaqaaq kale, noqosho, dhaqaaq. saddexdaas move camal wax ah ayuu ku dhameeyaa, uu kusoo jebiyaa maxaa la yidhahdaa hoostaadii ugu hooseysay. ayadana waxaa ujeediin haddeertaan in movekii koobaad uu soo dhacay oo kan uu yahay, kii labaadna uu halkan uu tegay use weli officialna ahayn, laakiin uu ayadana uu yahay meel hadda laga soo daadan karo. waxaa sameyneynaa maxaa la yidhahdaa USD saadaasheena ugu badan waxay saaran tahay waxaa la yidhahda in ay tahay meeshaan meesha hadda lagu noqon karo ilaahay beri oo kale hadduu ilaahay uu idmo. meeshaan inay tahay meesha maxaa la yidhahda la tegi karo oo suuq uu toos uga soo daadan karo. meelahan ayaa intrigeena u ololeyneynaa suuqu iska dhamaystiro. haddii meelahan lagu istaagi waayana it means waxay noqon kartaa liquidity oo meeshaan meel dhowr jeer lagu noqnoqdo kale noqon kartaa. kadibna suuqa waxaa la tagi karaa maxaa la yidhahdaa candlekan oo ah meel supply oo imbalanceiguna uu ku jiro, ayna muhiim tahay si fursadeenu bibis badan oo fiican ay inoo siiso inay halkan inoo tagto ayaa anaga aan jeclaan lahayn, maadaama uu hoostaan aan target gareyn doono oo 125 bib ah oo inaan target gareyn ayay muhiim inoo ahaan lahayd. laakiin mar walba suuq siduu kugula dhaqmo ayaan kula macaamili doonaa oo muhiim nooma in halkan ay maxaa la yidhahdaa fursadda naga siiso iyo halkan midkii markaas iska dhamaystirto ayaan maxaa la yidhahdaa kula challenge gareyn doonaa. insha allah markay ready noqotana insha allah waa in lasoo wadaagi doonaa barteena telegramka ayaan inkugu soo diri doonaa hadduu alla idmo, waana kusoo biiri kartaa saan hore inkugu sheegayna linkiga qaybta hoose ayaan kuu dhigi doonaa. sidoo kale NCD/USD waa lacag maxaa la yidhahdaa ayadana downtrend ah maadaama ay USD ay maxaa la yidhahdaa ay isku qisan yihiin mise isku si ay u socdaan. ayadana waxaa ujeediin inuu kii ugu hooseeyay halkan yahay, korkii ugu korreyna uu halkan ahaa. korkeeni baas ayadana la tegay hormi maalin hore oo idin sheegay korka marka la tago waxaa haddii meesha ugu korreysay lasoo tastagareeyo ma fiican tareedka oo waxaa waa waxay ka micno tahay in suuqaadii la dhammayn rabo. laakiin it means haddii hadda aa ujeedid meeshaan inay tahay meel oo waxaa la yidhaahdo trend lagu tegay, trendina lagu soo noqday ma xuma. waxaa ujeedaa trendigan inuu korkaan ahaa, hoostaan ahaa, uu korkaan handala ahaa, hoostaan uu ahaa, korkaan uu ahaa. kadibna waxaa ujeedaa hoostaana waa la jebiyey, hoostii kalena waa la jebiyey, kan xitaa waa lasii jebiyey, hoose badan ayuu jebiyey. soo marka sidaas oo kale aa aragtid waxaad leedahay waxaad ka fikiraysaa meesha ugu macquulsan oo lagu noqon karo suuquna uu soo tastagareyn karo. soo hadda waxaa ujeednaa imbalancegan inay tahay meel ugu yaro macquulsan oo la tagi karo. maxaa la yidhahdaa supplygan inuu yahay meel suuq u baahan yahay inuu tago, kadibna uu fursadeena maxaa la yidhahdaa seelka ah aan meeshaan kasoo qaadano ayadoo dhamaystiran oo dhammaan aan ruliskeena kala ka helnay, si marka hoostaan hoos kale uga hoos marto. sidaas ayaan NCD/USD ka rajeynayna hadduu alla idmo. sidoo kale listiga waxaa inoogu jira USD CAD haddii aynu forward ka fiirino waxaa ujeedaa 1 hour ay trendigeeda uu abtiran yahay. waa bilcagsiga USD iyo maxaa la yidhahdaa NCD/USD maadaama kuwaas ay seel ahaayeen, kuwaana waa buy baa laga rabaa oo DXY inay isku qisan yihiin baa la rabaa. soo iyadana waxaa ujeedaa korkii ugu korreeyay inuu kan yahay, hoostiina uu halkan uu yahay. kadib waxaan u ololeyneynaa in kor kale oo cusub uu imaado. marka korkaas meeluu ka bilaabanayo ma naqaano, laakiin waxaan sameyneynaa rules iyo waxaan sameyneynaa liquidity iyo maxaa la yidhahdaa counter trend iyo demand zone waana intaas aan wada helnaa ma fahanti oo price actionka uu maxaa la yidhahdaa haga. soo meeshaan hadda waxaa ujeednaa meel imbalance inay tahay oo suuqu candle xoogan ka dhaqaaqay, kii labaad ka dhaqaaqay, kii saddexaad markuu yimid ma kusoo noqonin hoostii hoose ee toos ayuu suuqu usii socday.
sidaas oo kale markay dhacdo waa meel uu ku jiro imbalance oo mar walba ay qasab tahay suuqu inuu soo asturo oo soo noqdo oo soo taabto uu kadibna ka kaco. So waa meesha ugu badan aan rajeynayna insha allah ilaa beri inuu imaado suuqu meelahan oo kalena uu naga siiyo waxaa la yidhahda liquidity oo bottom ah si inta asagaas liquiditygaas maxaa la yidhahdaa lagu noqnoqdo inta liquiditygaas la yimaado sorry liquiditygan meeshaan intuu halkan suuq kusoo noqnoqdo oo kor dhowr jeer uga kaco oo ugu dambeynna soo jebiyo oo sidaas uga kaco ayaan rajeyn doonaa hadduu alla idmo. haddii aysan noqoninna waxay noqon kartaa in suuq waxaa la yidhahdaa oo korkaan iskaga sii socdo oo halkaan aado kadibna markii aan qiimeyno waxaa la yidhahdaa meeshaan kore oo ah meel maxaa la yidhahdaa suuq hadduu jebiyo aan iyadana u baahan in gaarkeeda ula macaamishid oo markuu suuq uu korkaas madaxaas uu koro uu kala dulbaxo uu meelahan bullback kusoo sameeyo aad maxaa la yidhahdaa ka dhex raadisid ii sheeg counter trend iyo shuruudahadii kale kadibna uu suuqu all the way abkaas uu sidaas ugu sii socdana waa xal kale oo suuqa aan ka raadin karno hadduu alla idmo maadaama ay noqon karto tan inaan helinin oo aan weyno waxaa waaye si walba suuqu noqdo ayaa qasab inaa kula macaamishid. sidoo kale listiga waxaa inoogu jira USD JPY USD JPY last week waxaa ujeedeen markii aan tareedkan idiin soo diray meelahan ayuu joogay halkan ayuu ahayd movekan ayuu ahaa wixii aan idiin soo diray oo activeka markuu ahaa intiina ka faa'iidaysatay waa ka faa'iidaysatay intiina kalena waxaa waaye inaan mar kale read u ahaatiin ayaan idin rajeynayaa. waxaa ahayd aduu ilaa halkan ayaan ka qabanay 135 meelahaas anigu ka qabta umaleyna 130 meelahaas so laakiin ilaa 140 camal meelahaas u tagay laakiinse waxaan rajeynayna inuu kor aado laakiin maysan noqonin oo hoostaan markuu yimid aaggan hoos ayuu iskaga xirmay oo si fiican suuqa ma u soconin ilaa still ilaa haddana rajadii last week si lamida ayaan qabnaa oo halkan oo ah meeshaan korkan waxaan sugaynaa ilaa suuqu intuu ka dhex baxo meeshaan oo korsaa uga dhex baxo uu meelahan inoogu soo noqdo aan kadib fursadeena abtareenka aan sii raacno. haddii kale uu meelahan uu yimaado waa meel dhowr jeer lagu soo noqnoqday waxay noqon kartaa in la jebiyo oo maxaa la yidhahdaa aan suuqu istaaginin oo toos direct uu uga soo imaado oo maxaa la yidhahdaa dhimaankan hoos imaado kadibna all the way abkaas uu aado suuqa hadda aragti meel uu dhowr jeer uu testigareeyey riskigeeda ayaa badan meel oo lagu kalsoonaan karana ma ahan. marka insha allah iyadana waxaan rajeynaynaa in uu suuqu toos uu kor inoogu sii socdo oo fursada kale hore uu naga siiyo haddii aysan dhicinin qasbayno oo waa sugaynaa ilaa uu hoostaan hoose uu maxaa la yidhahdaa kasoo testigareeyo ayadana. sidoo kale listiga waxaa inoogu jira AUDUSD waxay la qisa tahay NCDUSD USD iyadana wax badan oo falanqeyna ma u baahna iyadana hoostii ugu hooseysa waatan korkii ka koreyna waa kan hoostii kasii hooseysa kusii xigtayna waatan intaas markaan helnay suuqu down buu ahaa oo warkeedu waa iska caddeed intaas markaas waxaa ujeedaa move ugu dambeeya oo soo dhaqaaqay inaan raadinay kan ayuu ahaa supplygiisuna waa midkan maxaa la yidhahdaa wax meeshaan hadda keliya aan sugnaayo maxaa la AUDUSD waa inaan liquidity meelahan ka helnaa ha ahaata halkan mise mid kaloo cusub ha ahaado meelahan uu ka samaysmo oo 2 jeer camal meel la testigareeyay ahaato kadibna marka intaas aan helno waa inaan supplygan la tagaa counter trendigi iyo waxaas iyo candlestick confirmationka waxyaabahaas kale waa inaan ka helnaa ugu dambeynna waa inaan fursadeena seelka meelahaas aan kasoo raacno hadduu alla idmo. sidoo kale beri waxaa listig inoogu jira lacagta ingiriiska indexkeeda aan marka hore ka bilowno waxaa ujeedaa korkii hoostii ugu hooseysan halkan tahay korkii ka koreyna halkan tahay hoostii ku xigtana halkan tahay korkii ka koreyna halkan ay tahay. marba haddii intaas aa heshid waxaa dareemi kartaa korkan waa la jebiyey oo waa sax laakiin sida lagu jebiyaa waxay tahay waxaan ku yidhi waxay ahayd trendi kor hoos kor hoos kor ayay ahayd kadibna waxaa dhacday markii korkan la jebiyey anagii oo fursadeena koowaad aana weli raadinin oo helin isla one move inuu soo dhaqaaqay oo hoostii ku hooseysay uu jebiyey tii kusii xigtayna oo hoostaan ahaydna la jebiyey baa ujeedaa hal dhaqaaq. so markii intaas aragtid suuqi
korkaadii la jebiyey ka kacay noqotay oo hoostii ayaa weli sii socotay ayay ka micno tahay. kadib hoostan markaan aragnay meeshan liquidity baad ka raadin kartaa. haddii aad warkii oo kale aad timaadid waxaa ka raadin kartaa liquidity ayaa ka raadin kartaa oo meel 2 jeer iyo ka badan la taabtay noqon kartaa. liquidity-na waa kana oo meesha waa ku jira. so iyadana waa clear. waxaan sugaynaa in hoosta korkan supply-gan la inoo tagaa kadibna aan counter trend aan ka helnaa oo suuqu trendigu uu ku tagaaba noocu raba ahaade uu ahaadaa mid inoo jebiyey hoosteeda ugu hooseysay. kadibna markuu suuqu inoo tago waa inaan helnaa content confirmation ah kadibna waa soo seel garayn doonaa hadduu ayadana ilaahay u idmo. so lacagaha marka ugu faa'iideysan kartid waxaa ka mid ah JBP CHF oo ayadana ay tahay maxaa la yiraahdaa clear downtrend. iyada waxaa sugaysaa inaa dhammaan ruleskeena ka wada heshid. wax oo ay weli nasiisay ma jirto. meelahan waxaan ka sugaynaa inaan ka helno liquidity counter trend kadib ayaan iyadana soo seel garayn doonaa. sidoo kale waxaana fiirin doonaa haddii la idmo AD JBP na iyadana last week ayay fursadan ina siisay. haddaa xasuusataan last week ayay 100 bibina siisay oo halkaan ayay ahayd meeshaan ka trade garaynay. halkaan ayaana targetkeena ahayn laakiin iyaduna waxay samaysay korkii ayay inoo jebisay oo ahayd meeshaan targetkeena markaan ka helnay korkii ayay inoo jebisay oo ahayd halkaan. stillna waxaan sugaynaa meelahan haddeertaan inuu suuqu uu inaga siiyo waxa la yiraahdaa confirmations kadibna uu kor u sii aado ayaan rajayn doonaa. JBP AD waxay iyada kor u noqotay JBP CHF iyo indexka JBP na hoos u noqday. wax kale ma ahan JBP lacagta AD ayaa maxaa la yiraahdaa saameyn ku yeelatay. mafaat lacagta ku lamaansan hadday saameyn ay ku leedahay lacagtaas ka saameyn weynaato waa la jiha bedelayaa waan waxa waaye waa laga awood badanayaa. so marka AD way lacagta hadda go'aamisay JBP. so iyadana saasay JBP CHF ay uga duwanaatay. sidoo kale waxaa ka mid ah JBP card oo iyadana la qisaa JBP CHF. waxaa la yiraahdaa inkastoo clear maxaa la yiraahdaa downtrend ahayn laakiin haddana waxaa ujeedaa gidaar markii lasoo jebiyaba oo maxaa la yiraahdaa gidaarka loo socdo inay ka micno tahay in trendigaada la qasi rabo oo la jebin doono la jihayn doono jihada laga bedeli doono. iyada sababta ay saas u noqotayna wax kale ma ahan. waxaa ujeedaan in maxaa la yiraahdaa uu hoos iyo kor iyo hoos kadibna hoos kale maxaa la yiraahdaa ay noqon karto halkaana meel suuqa laga soo daadin karo oo supply-gan markii la tago dhoonkan hoose la keeni karo ayaan rajaynaynaa hadduu alla idmo. haddii ay sidaa noqon weydo oo saas ka macquul gal ahaan weydo waxaan u saadaalin doonaa inay all the way hoostaan timaado kadibna meelahan lagu noqdo kadibna toos ay downtrend ay u imaato. sidoo kale waxaa listiga inoogu jira waxa la yiraahdo JBP JPY waa iyadu waa uptrend oo clear ah oo jihadeedu ay caddahay laakiin waxaa ujeedaa korkii uu hoostii uu in halkaan ahayd korkii ku xigeen halkaan ahayd hoostii kalena halkaan. so korkaan waa la jebiyey weliba trendi baa lagu jebiyey oo 3 maxaa la yiraahdaa move ah. kadibna waxaa ujeedaa kana ayaa yimid oo kii u hooseeyay ayuu ag yimid. kadib waxaan rajaynaynaa inuu kan uu halkaan kore uu isagana inoo sii jebiyo oo gidaarkan ah. gidaarkan markii inoo jebiyana lagu soo noqdo aagaan meelahan aan confirmation ka helno oo all the way up uu aado ayaan JPY rajaynaynaa hadduu alla idmo. sidoo kale waxaa listigeena ka mid ah lacagahan ku trade garayn doono this week. euro indexkeeda ayaan ka bilaabaynaa. lacagta euro sidaa ujeediinba iyaduna waa downtrend official ah oo war la-aan ah. sababtuna korkii ugu koreeyay kana ay ahayd si rumeeya ma loo jebinin oo waxaa ujeedaa movekan inuu soo jebiyey trendigan yararka oo gidaarada ah. kadibna iyadana sidii maxaa la yiraahdaa JBP index oo kale inay halkaan inoo tagto ayaan rajaynaynaa hadduu alla idmo
oo supplygan lasoo buuxiyo kadibna all the way down trend aan aadno oo hoostan hoos ka hooseysa aan helno. marka lacagaha uga faa'iideysan karto waxaa kamid ah euro cad oo kale kamid ah, iyadana waa down trend. weliba euro cad waxay ku fiican tahay fursadeedu waa dhowdahay, marka fiiri sidoo kale waxaa ujeedaa inay fursadeedu aad macquul ay u tahay. so waxaan ka sugnaa iyadana waa in hoostan hoose lasoo jibiyaa kadibna meeshaan lagu noqdaa kadibna all the way downkaas la aada. insha allah saas ayaan rajeyneynaa. sidoo kale waxaa kamid ah JBP euro JBP oo iyadana inkastoo ayada oo maxaa la yiraahdaa trendigeedu qurxooneen, laakiin trendigeedu guud waa sell oo hoostan korkeedii hoostan kale ayaad ujeedaa. intaas mar haddii aa heshay waxaa raadisaa waa liquidity iyo counter trend iyo suuq waxyaabihii kala macaamileed. halkaana liquidity oo already waa ka haysataa, liquidity waa ka haysataa. sidoo kale waxaa raadineynaa supply-ga ugu macquulsan. supply-na halkan ayaan uga jeednaa oo waaba kana supply-na halkan ayaan ka helnay. so meeshaan waxaan sugeynaa insha allah iyadana sida suuq uu marka koowaad uga soo daato kadib uu inoogu noqdo ina confirmationadii iyo counter trend oo iska dhamaystiro. sidoo kale candlestick confirmationki oo aan ka yara helno. intaas markaan ka helno ayadana all the way downkaas ayaan u saadaalin doonaa oo hoostan hoos ka hooseysa ayaan rajeyneynaa. haddaba haddii aad muuqaalkan ka heshay mise waxa aad ka faa'iideysatay this week, waxaan kuu rajeyneynaa horumar iyo barwaaqo. sidoo kale ha ilaawin inaad bartaan subscribe saarto oo sidoo kale aad kusoo biirto waxaa la yirahdaa barteena telegram Somali Online Opportunities. waa mahadsantihiin dhammaantiin. intaan muuqaalkan muuqaal lamid aan ku kulmi doono. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.